Pep Guardiola oo magacaabay cidda ka dambeysa guushii ay ka gaareen Tottenham. Pep Guardiola ayaa ammaan weyn u jeediyey daafaca Manchester City Abdulqaadir Qosnoff kaasoo lagu qiimeeyey 34 ilaa 43 milyan isagoo xitaa aan la imaan wax boorso ah. Daayarkan 20 jirka ah aan khibrad badan lahayn ayaa si wanaagsan uga soo kabtay kulankiisii hore ee Etihad isagoo bandhig wacan ka sameeyey guushii ay City ka gaartay Tottenham taasoo u suurtagelisay inay la baxaan shabaq nadiif ah. Guardiola ayaa si gaar ah u bogaaday qaab ciyaareedkiisa. Waxaan ognahay in Qosnoff darbo si weyn looga jecel yahay qolka labiska markii aan Tottenham wajahnay. Wuxuuna la safray isagoo aan wadan wax boorso ah. Wuxuu u yimid si uu kubadda cagta u ciyaaro. Markaad la hadasho kaliya wuu qoslayaa markasta. Laakiin waa ciyaaryahan lagu kalsoonaan karo, aad u dheereeya, aad u dhaqso badan, tayo sare leh marka kubadda la haysto. Baaskiisana waa heer sare. Wuxuu jebin karaa rikoorada difaaca waana xirfadiisa gaarka ah. Guardiola wuxuu intaas ku daray, dabcan wuu horumarin karaa awoodiisa, balse waa 20 jir, aad ayuu u da'yar yahay. Waxaan arkay ciyaartoy badan oo xawaare sare leh, isaga waa mid ka mid ah. Dadku waa jecel yihiin waa qof aamusan, shaqadiisa qabsada, cabasho la'aan ah, aadna u degan. Waxaan hubaa in taageerayaashiinu ay jeclaan doonaan. Ma sahlana inuu ka soo kabto wixii ka qabsaday kulankii Chelsea, balse wuxuu ahaa mid degan kulamadii uu dhawaan ciyaaray, aad ayuuna u fiicnaa.